السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كلنتي وعن مرلبات وحن كهالي دونا عشر كينا اللبات أو كصابسن دبي عذها والدك كلي تلسك وحكسو هذا الني authoritarian style أفرت قيبات أو habka ilmo korinta hab ka mid oo loo yaqaano kaliya talis waxaan ka soo hadalnaa muxuu yahay kaliya taliska hadda waxaan ka hadlaynaa casharkan dabeecadaha waalidka lagu yaqaano kaliya taliska marka waxaan ka rabaa sidii aan ka soo hadalnay casharka ugu dambeeyay notebookgaada la soo bax hal dhinacna waxa ku qorataa waxa aad casharka ka fahmaysid dhinaca kalena waxaad ku qorataa haddii dabeecadahan la sheegayo oo ay yihiin kuwa adiga isku tilmaami kartid adiga oo aan is xukuminaynin ogow hadda xukunka iyo judgment ya la dhahaa luqadda ingiriiska lagu magacaabaa waxa waaye waxay ka mid tahay kaliya taliska dabeecadaha oo kaliya taliska waxaan rabnaa open mind inaan noqono barano habka waalidnimada wanaagsan ee la isticmaalo oo waliba ku salaysan sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama aan hadda islaam marka dabeecadahan waxaa ka mid amar badan amarka muxuu ahay waxa laga yaabaa in uu ma arkin oo iska yahay waxaan qaba urya kaliya hausan ahayn laakiin amarkii oo xoogaa xad dhaaf camal mar waxaa laga yaabaa cunugiyo iska fadhiyo oo wixii laga rabay uu dhameeyay adigii aad fadhisid qof kaloo weyn ama ma arkin oo aad rabtid inuu cunugaadi ama wax u qabto kala waana dabeecado wanaagsan laakiin mararka qaarkood ilmaha markii laga badiyo hadhowti waxay noqonayaan lid wixii aad ka rabtay waxaa kaloo jirto dabeecadaha lagu yaqaan waxaa ka mid xakameyn badan adoo amarkiina siinayo waa xakameynaysaa maxaa loola jeedaa xakameyn مثلا cunug inuu soo cayaaro rabaa meel aan dhib lahayn oo kale ama saaxiibadiisa uu la hadlo ama suuqba uu aado marka qaarkood waxaa dhacdo wax aan macno lahayn aan rabaa lagu leeyahay taargetka wax ka soo qaadana macnihii waxay u tahay يعني فرحت إني بنانك سبحان أنا عاوزة السوق عطان مركا كلي واحد لسوق داي معها إن واحد لقاخد لايو أما أو عنق ويدينايو وواحد كسي وين وأصدق قيمة وله وجوان بحيو الكيوان لبست بنان كان آذي إن هادو تي ويحي لسوق تحاوير هذا أما آذي قيمة ويقول لهانين والقفانا يا وحلو رفانا يا قف كفيس وقفانا يا مركا تاس حكمينتاس بدن oo macnaha lahayn marba hadii firaaq la iska leeyahay ilaahayna uu nasiiyay gaadiid ama aad aadi kartidba ama aad qof kale ku diri kartid taasna way jirtaa waxa kale oo jirto ciqaab mar walba soo taagan hadaad u kurgashid hataa waalidkaas waad arki doontaa mar walba amarkiisa in la fuliyo asagoo jecel haddana ciqaabtiisa ayaa badan waxaa kaloo jirto dabeecadaha lagu yaqaano jacaylka ilmaha oo uusan u muujinin ogow hadaya ilmaha ma jeclo ma aha fiiriya wuu jecel yahay cunugii laakiin maadaama jiljilaaca uusan u baraninba ma u muujinayo jacaylka cunugii marka ma fahmayd mar walba wuxuu u fahmayaa in aadan jeclayn unless ay xaaladdu ka duwan tahay meesha aad ku nooshiin taas waa mid kale waxaa kaloo jirto in uu waalidka aaminsan yahay sababta uu amarka u bixinayo mararka uu amarka siinayo cunuga kaliya waa waalid baan ku ahay waa inaad yeeshaa wax kaloo ka dambeeya malaha waalidka ma arkaysid asagoo u sharxayo cunuga waxa uu u sameynayo مثلا هذا دلاتس ماشي كقاد واحد very simple لكن waxyaabo qaarkood oo cunuga impact gareynayo ama long term emotional ku sameeynayo uma sharxi karo waalidka macni uma haysto necessary inay tahay inuu sharxo marka habka marka ayna cabirka waan ka soo hadalnay xakameynta inay kor jirto diiranaanta hoosna diiranaantina muujinta jacaylka jiljileysanaanta
waxaan insha allahu tacaala cashirka soo socda ka hadli doonaa arinta ugu muhiimsan sababta maxay tahay waxaan dhan aan u baranayno habka ilmo korinta ilmaha say u korayaan sida loola dhaqmayo ujeedadaas oo dhan maxay tahay maxaa waqtiga isaga dhuminayna go ilmahaada waxaa rabtaa inay wax bartaan inay koraan marka waxaa jirto saameyn weyn inay ku leedahay cunugan korayo habka aan ula tacaamulayno waalidka ula tacaamulayo habka waalidka ula tacaamulayana waxay ku xirnaanaysaa levelka waxbarashadiisa ay tahay oo aqoonta uu leeyahay ilmaha waalidiin qaarkood ilaahay subxaana watacaala ku ilhaamiyey aad ma arkin oo u yaqaano wixii cilmigii unbaysan iskuul u aadin mooye marka waxaan baranaynaa maxay tahay saameynta habkan uu ilmaha ku yeelan karo waxaan isku arki doonaa casharka dambe si aan uga hadalno arrintaas muhiimka ah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.